فرشي التراب يضمني وهو غطائي، حولي الرمال تلفني بل من ورائي، واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي، والنور خط كتابه أنسي لقائي، والأهل أين حنانهم باعوا وفائي والصحب أين جموعهم تركوا إخائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا وبعد. khudbadaheennana waxay ku saabsanaayeen geediga aakhiro iyo isxusuusintiisa. waa hawsha inoo taalle soo socotee lama huraanka ah, see loogu diyaargaroobaya iyo qalbiga in laga ilaaliyo qalalka oo aanu marna ilaawin aakhiro iyo acmaasha loo sahay qaadanayo. khudbadeennani waxay ku saabsan tahay qofkii waynu ka soo warrannay markuu dhimanayo, calaamado muujinaya qofkani inuu ahlu janno yahay iyo sababo lagu mutaysto khaatumada wanaagsan. waxaa intaa ka horreeyaynu baraarujinaynaa qofku wuxuu ilaahay la hortegayaa waa camalka, laakiin arrintan aynu ka hadlaynaa wuxuunay keenaysaa uun istinaas, in lagu farxo laguna bushaaraysto addoonkan xaaladdii ugu dambaysay adduunyadiisa ilaahay uu khayrka waafajiyey. waayo rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah. markii lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii dee qof walba lasii qoray aakhiro meeshuu gelayo, ma jannaa mise waa naar, maxaanu ka camal falayna camalkuu yahay, maanu kaa hore qoraalka hore ku daysanno. wuxuu rasuulku yihi camal sameeya, qof walba waxaa loo sahlayaa wixii loo abuuray, hadday jannatii hadday naarta. waxaa kale oo nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa araada allahu bicabdihi khayran istacmalah. qofka markuu ilaahay janno la doono camalkeedu waafajiyaa, wuu camalgeliyaa. marka asxaabtu waxay idhahdeen siduu istacmalahu waa maxay, siduu camalgelinayaa? daedna wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam yuwafiquhu licamalin saalixin qabla mowti. markuu sii dhimanaya unbuu ilaahay camalka wanaagsan u jeedinaya. marka waxaa ilaahay lala hortegaya waa camalka, tanna waa lagu bushaaraysanaya. waxa ugu horeeya calaamadahaas qofka inuu noqdo hadalkiisii u dambeeyey laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah. xadiidka mucaad ibnu jabal baa sidaa sheegaya. nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam kelmaddaasi qofka ugu dambaysa hadalkiisa jannaduu gelaya. waatuu kula dadaalaya adeerkii abu aalib radia allaahu canhu sala allahu calayhi wasalam. adeerkii abu aalib buu kula dadaalayay inuu bal kelmaddaa ku dhawaaqo. nasiib darro waa su diiday, iyaduu nebigu la jeclaa calayhi salaatu wasalaam. kelmaddaa iyada ah wuxuu markaa nebigu ina faray inaynu kula dadaalno qofku markuu sii dhimanayo, intaynu dardaaran iyo wax kale iyo ku mashquuli lahayn. waa in tawxiidka laga akhriya agtiisa, laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah. haddii la islaa labada eray wada kari maayana laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah, taasaa loogu celcelinaya si uu qabsado oo markaa ugu dhawaaqo. laqinuu mawtaakum bilaa ilaaha ila allah calaa macna alxadiid. nebigu saasuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. calaamadaha waxaa ka mida oo calaamada labaada qofku marka uu si aakhiro ay camalkiisa ugu dambeeyaa inuu noqdo aljihaad fii sabiili illah, ama si kale haddaynu u dhigno jihaadka uu ku shahiido. aayadaha aynu akhriyaynay rabbuna subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga warramay dadka mujaahidiinta ah ee ku shahiida jihaadka, farxadda ay helayaan iyo inay ku soo bushaaraysanayaan dadka soo shahiidi doona ee ka daba iman doona. waxaa xusid mudan inuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku isagoon waxba hakranaynin haddii uu suuroobi waayey fagaarihii iyo goobtii cadowga lagula dagaalamay inuu ku dhinto, laakiin uu niyeysto niyadu wanaagsan oo runa inuu ku dhiman lahaa ama ku shahiidi lahaa dagaalka gaalada,
furaashkiisaba ha ku dhintee ilaahay wuxuu gaadhsiinayaa derajada kuwa shahiiday man sa'ala allaha shahaadatan ballaqahu allahu manaazila shuhadaa'i wain maata calaa firaashi qofka ilaahay weydiisto shahaado ilaahay wuxuu gaadhsiiyaa dadka shuhadada ah derajadoodii haba ku dhintay firaashkiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam rajadaasi u ina geliyey iyadoo dad badan aanay fursaddaa helin waxaa ka mid ah calaamaadkaas khaatimada wanaagsan sheegaya almowtu birashxi aljabiin inuu qofku dhinto isaga oo dhafoorkiisu dhidid badanoo kuuskuusan uu leeyahay ama dhididsan yahay nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam mowtu lmu'mini bicaraqi aljabiin qofka muuminka ay markuu sii dhimanayo waxa dhididaya dhafoorkiisa marka waxay ka turjumaysaa bay leeyihin culimmadu sakaraadka intii u khafiifsanayd oo soo martay baa dhididkaa ka keentay ama marka loo bushaareeyo ee ilaahay jannada ugu bushaareeyo dee naftu ay ka sii baxaysa la tusiyo jannada meesha uu ka fadhiisanayo xishoodu ilaahay ka xishoonayo iyo xumaan uu ka xun yahay camalkiisii uu soo sameeyey qalloocna ayaa ula dhididaya sida had iyo jeer qofku marka uu xishoonayo u dhididoo kale calaamadahaas waxaa ka mid a isagoo qofku dhinta habeenka jumcaha ama maalinka jumcaha nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi maa min muslimin yamuutu yowma aljumucati aw laylata aljumuca ilaa waqaahu allahu fitnata alqabr qofka muslimka ah ee dhinta maalinta jumcaha ama habeenka jimcaha buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waqaahu allahu fitnata alqabr ilaahay wuxuu ka badbaadiyey cadaab alqabriga haddii ilaahay ka badbaadiye cadaab alqabrigiina wixii ka dambeeyey balaayahaana uu ka badbaadinayaa allahuma ajcalna min haaulaa'i baynu ku ducaysanaynaa xadiidkaasina culimada qaarkood waa daciifiyeen qaarkoodna waa sugan yahay bay leeyihin waxaa ka mid a calaamadahaas inuu qofkaa ku dhaco cudurka daacuunka la yidhaahdo allah inaga nabadgeliyo oo uu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam inuu ahaa cuqubo lagu salliday ummadihii hore ummaddanna ilaahay shahaado uga dhigayo waxaa ka mid ah calaamooyinkaas mowtu lmar'ati fii nifaasiha bisababi waladiha gabadha oo isku dhimata iyadoon weli dhalin markay foolanayso ama umul aroortaba oo markii ay umushay kadib dhimata nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waalmar'atu yaqtuluhaa waladuha jamcaa shahaada yajuruhaa waladuha bisararihi ila aljanna gabadhu haddii ay dhimato markii ay dhalaysay weladkeeda ayaa ula jiidanayaa mandheertiisa jannada waa bushaaro markaa dumarka had iyo jeer xaaladdaa ku dhinta ay leeyihiin waxaa ka mid a almowtu bidaa'i lbatn dad badan baa caloosha ama kansar ha kaga dhaco ama si kaleba ha u dhintee badnigu inta uurku jirta qof kastoo u dhintay waxaynu u rajaynaynaa shahaada waxaynu u rajaynaynaa inuu xusnulkhaatim helay nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man yaqtulhu badnu falan yucadaba fii qabri qofka calooshiisa u dhinta qabriga laguma cadaabi doono man maata fi lbatni fahuwa shahiid almabtuunu shahiid riwaayooyinkaa kala duwan baa ku soo arooray waxaa ka mid a almowtu bilxarqi waalgaraqi waalhadm qofku inuu ku dhinto biyo uu ku haftay ama dabkii ama meel ku duntay laakiin waa inaanu isagu isku dilin wax kastoo noocan oo kalea haddii isagu sababu isugu noqdo uu isku dilo waa qof qaatilu nafsi oo isdila weeye waa qofka dar alla ugu dhintay rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam dadka shahiida waa 5 qofkii madcuunka ahaa daacuunku ku dhacay kii caloosha u dhintay kii biyaha ku haftay wa saaxibu lhadmi waashahiidu fii sabiili illah 5taa aynu soo sheegnay buu xadiid ku wada tiriyey saxiixa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa calaamooyinkaa ka mida almowtu bidaa'i sil cudurka t b-da la yidhaahdo ama qaaxada inuu qofku u dhinto asilu shahaada rasuulku wuxuu leeyay sala allahu calayhi wasalam cudurkaasi qofka hadduu u dhinto dee waa cudurkaa qaaxadiisii malaxda ka buuxinaya waxay u noqonaysaa shahaada marka waxaad halkaa ka arkaysaa cudurrada had iyo jeer qaaxadu ama gudaha oo qofku u dhinta inay qofka dhib badan ku hayaan iyo culayskooda iyo xanuunka ay leeyihin oo fara badan daraaddeed ayaa ilaahay darajadaa u gaadhsiiyey waxaa ka mid a an yamuuta almuslimu bidaati aljanbi oo fureenka waxa la yidhaahdo oo isaguna kuwa horon raacaya saaxibu daati ljambi shahiid
almaytu min daati aljanbi shahiidun labadaa riwaayaba ku soo arooreen nabiga laga warinaya calayhi salaatu wasalaam calaamooyinka waxaa ka mid ah an yakuuna almar'u muraabitan fii sabiili illah qofka faramaha muslimiinta difaaca kaga jira ee cadowga ka ilaalinaya hadduu xaaladaa darallaba u dhintoon cadowgu dilinba isaguna shahiid buu noqonaya riwaayan dhowraa ku soo arooray waxaa ka mid ah almowtu fii sabiili اdifaaci can اddiini wاlnafsi wاlmaal qofka oo dhinta isagoo difaacaya naftiisa diintiisa iyo maalkiisa iyo caarkiisa ama maxaarimtiisa waayo nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid qofka isagoo difaacaya xoolihiisa la dilaa waa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid isagoo ehelkiisa difaacaya qofka la dilaana waa shahiid waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid isagoo qofku diintiisa u diriraya haddii la dilana waa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid isagoo isdifaacaya haddii la dilana waa shahiid laakiin waxaa xusid mudan shahiidkii soomaalida waa inaanu ahayn intuu dadka daandaansado oo xoolahooda uu soo dhacu dadka soo laayo markuu meeshiisa galo qori la soo jeesanayo odhanaya waan isdifaacaya waa la qisaas baa loo haystaa waa la daba socdaa marka qofka waa qof aan dee dar ilaahay isaga soconayo daalin ahay wey waxaynu gudbi lahayn asbaab lixusni alkhaatima sababaha aynu rajaynayno qofku markuu la yimaado inuu khaatimada wanaagsan helayo sababahaas waxaa ka mid ah alistiqaamatu calaa diin illaah ilaahay diintiisa oo qofku uu ku tooso markuu isagoo diinta ilaahay ku toosan oon qalqallooc lahayn oo cibaadooyinkii iyo khayrkii ku dadaalaya sidaa malag ugu yimaado bushaaradii buu helaya ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika ألا تخافوا ولا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ساسي يقول بشارين الملائكة سيقول سكرات مركة أيوي مادان وحكم إذا التقوى قفكون يقف تقية ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إلى هاي الرمي سورة وفضضين كوى الدنيا يكوى آخرة بقفك إلهي كعبصرة وحكم إذا الشرق ونقمدي ومناكسناي قيبه الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وحكم إذا التوبة إلى الله قفكم مركو سيدي من يهدوي هاي قفتاي ومع سيدي حمانتي كتوبت كاني التوبة من الذنوب ومن علامات أو من أسباب حسن الخاتمة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وحكم إذا المداومة على الطاعة قفكون طاعدي وناقي جوكتي وحكمنا ذكر الموت وقشر الأمل إن قفك بريها ودن ما يسير لمن يدي الذي سادني ذنا إقابة جاريدنا وآذ حصي يقول علينا وحكمنا الخوف من أسباب سوء الخاتمة إنه قفك آذ وقف يتشجعي هاي أو وعب سنة صوابها خاتمة ضايك كحمانيس الرماها صار موحي كمدهين وحيابها إن كد ذالينه إنه إلهي كرجينayno inuu inagu siiyo khaatimo wanaagsan sida daraadeed warwar la'aan ma jirto qofku ilaa uu istul taagayo galayo jannada Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittibaa'a Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittibaa'a wa arina al-baatila baatilan warzuqna ijtinaba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة الأنبياء اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الهالكين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم على عدوهم اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة